rasaas iyo qaraxyo isxiga ayaa duurnimadii maanta laga maqlay saldhigga ciidamada nabad sugidda qaranka ee ku leeyihiin Muqdisho kaas oo lagu magacaabo godka Jilacow sida dad goobjoogayaal ay xaqiijiyeen 3 qof oo ka tirsan ciidanka dawladda ayaa dhintay saraakiisha ciidamada nabad sugidda qaranka ayaa soo bandhigay meedadka kooxaha weerarka soo qaaday sidoo kale xarakada al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan oo duurnimadii maanta lagu qaaday saldhigga ciidamada nabad sugidda qaranka ku leeyihiin degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho goobta ay maanta weerareen xarakada al-shabaab ayaa ah saldhig lagu xiro dadka lagu eedeeyo inay dambiyo ka galeen dalka iyo dad kale ee la xiriirinayo inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday dadaalo lagu doonayo in lagu sugo ammaanka caasimadda waxaa sidoo kale jiray howlgallo hubka dhigis ah oo dawladdu ka sameysay meelo ka mid ah Muqdisho xarakada al-shabaab ayaa horey u weeraray xarumaha ugu muhiimsan ee dawladda oo ay ka mid ahaayeen xarunta maxkamadaha dalka golaha shacabka aqalka madaxtooyada iyo hoyga hay'adaha qaramada midoobay ee ku leeyihiin Muqdisho Aways Maxamuud Jilacow Royal TV Muqdisho